lagu saariyay sidii loo heli lahaa wakiilo tayo leh oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 80 xubno oo ah wakiilada ka howlgala magaalada Jigjiga iyo maamulka ugu sareeya hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee Soomaalida ayaa lagu soo bandhigay nidaam dulsaar la'aan ah deyn ahaan loo siin doono wakiilada deyntaas oo ay ugu yar tahay 30,000 oo bir uguna badan tahay 250,000 oo bir noqon doontana mid shaqo abuur ballaaran laga heli doono ayaa goobtani lagu gorfeeyay waana adeeg hufan oo casri baahi ballaaran ah ay u qabto bulshadu sidoo kalena kulankan ayaa ahaa isxogwaraysi dhiirigelin iyo wakiilada ugu wanaagsan hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee Soomaalida in la abaal mariyo shaqadana dardargelin ballaaran lagu sameeyo lana taabageliyo ugu horeyna maareeyaha hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee Soomaalida Khadar Axmed ayaa ka hadlay kulankani waxaan ugu talagalnay in aan wakiilada u helo fund ay ku shaqeystaan iyaga oo kuwa aan la mudnaan la siinayo say u kala mudan yihiin ay u kala fiican yihiin marka shuruudahan waa iska caadi oo wixii caadiga ah inta badan de qofka la siinayo maalgelin oo wixii de commitment iyo heshiis wax la iska siinayo maadaama uu ahayn oo yahay wax deyn oo la siinayo inuu soo celiyo la rabo waa in qofku de ku talagala macnaheedu oo bilowba maxaan bixin haduu bixin waayo uu ogaado inuu de khalad sameeyay oo macnaheedu uu ka baxay heshiiskii iyo wixii la mid ah marka si clear ah oo haato shuruudo yar oo kooban oo waliba aad u dhib yar yaan ugu talagalay waana wax iska caadi ah qof walba oo meel wax ka qaadanaya xataa waxa loogu talagalay inuu ugu yaraan wixii saxiixo wax la yimaado damaanadii laga rabay wixii la yimaado wixii inta ka baxsan as a business uu qofku u rabo qofka tusaale ahaan wakiilka haduu yahay qof ganacsada uu ganacsigiisa kale inuu maal gashado doonayo tan waa macnaheedu qorshe loogu talagalay wakiilada si gooni ah laakiin haduu yiraahdo waniyo waxa rabaa dukaankayga in aad camirtaan oo businesskayga aad ballaarisaan oo ganacsi weyn u leeyahay uu la yimaado shuruudihii kale in yar ka duwanaa kuwan unba iyadana la marin oo uu qaadan kara iyadana midda kale waxay dheertahay waa bila faa'iido oo tan hadda wax faa'iido lama saaray qofka hadii 250 ka ilaa inta ugu badan marka la siiyo wax faa'iido la saaray ma laha laakiin tan kale caadiga ah waa businesskii xafiisku waday ee maalgelintu waday iyagoo mudnaan la siinaya wakiilada waa la siinaya mudnaan gooni iyagoo la siinayo loo fududeynayo oo macnaheedu loo saariyay maadaama ay ka mid yihiin xafiiska qayb ka mid ah maadaama ay yihiin iyagoo aad loogu fududeynayo faa'iidadiina la saarayo intii kale u baahdaan ee shuruudda ay buuxiyaan waa la siin karaa iyadana adhankoodana xubno ka tirsan hay'adda iyo wakiilada kulankan loo qabtay ayaa madashani ka hadlay maantii shaqo abuur ballaaran ayaan ka helnay kulley haddaan wakiilada nahay haddii cabasho jirto dee isku cabasho baan nahay hadday ammaani jirtana kolley isku ammaanu baan nahay waayo isku dan baan nahay inteedana wax hal shay ma ka shaqeynaa shaygan diiwaangelinta la yidhaha waa waxaan macaamiisha lagu kala kasbanayo haddaan diiwaangelin jirin macmiil lama helayo macmiilkii maanta waa la kala boobayaa innaga guud ahaan wakiil ahaan mar shil gaaraynu qabsan doona haddii la yidhaahdo taarget baa la samayn doonaa lagula xisaabtamo wakiil walba bishii imse qofu diiwaangelin karaa lagu qiimeyn doono nin walba intaasoo qof waynu diiwaangeliyaa haddaan diiwaangelin jirin macaamiil ma helayno أنا هذا الكل راجي أو نشعلنا سيوضو شغابور في عمل نوسميي العقب بدنا وينكه الله نول بدرك قريا كده سنحتها awayaan walaalayaal waan garanhaynaa maanta iyo maalinkii makarafinaasi ama yahalo kaash ay deegaankeenna ku soo biireen marxaladaha iyo farqiga u dhaxeeya waxay yihiin waan ognahay maanta dad badan oo cayraha oo waxba haysanin ayaa maanta ka faa'iideystay waxyaabo badan oo maaragtay ay soo kordhiyeen walaalaheen waxa weeyaan dhanka kale waxaan mahad u celinhaynaa wakiilada oo iyaga laftoodu dadaal badan muujiyay markaas ayaa waxa qaatay cid kasta gabadha ariga la joogta ayaa mobile wadato lacagtii ku wadata geel jirkii baa ku wata waxa weeyaan fursado badan ayay maaragtay sabab u noqdeen wakiiladu arrintaasna waa arrin ay ku mudan yihiin walow la yidhi laa shukra cala alwaajib qofka waxa shaqadiisa in lagu ammaano ma mudno laa shukra cala alwaajib marka la leeyahay waayo innaga dan baa inoogu jirta shaqo abuur baan ka helnay halkaas wax badan baan ka soo kororhsannay wax badan baan ka faa'iidnay waqti dheer ayaan soo haysanay maxaan ku dhahdaa halo kaash suuqa keligeen ku ahayn hadda shirkaan soo wanayd muhiimaddu ma ahan inaan qaadanno abaalgud ma ahan niyadjab inay u keenta ma ahan in maanta aan shillimada halkan aan ka qaadanno ee ninkii waayaa inay niyadjab ku keenta ma ahan
laakiin maanta waxaa lainooga baahan yahay maadaama suuqii la inagula jiro dadaallo badan la muujinayo horta wakiil kasta waxaa saaran waajibkiisa waajib ka badan ayaananu leeyahay wakiilada isxog waraysi iyo qaadashada ama fulinta in la taabageliyo shaqada kadib ayaa goobtaasi abaalmarin lagu guddoonsiiyey xubnaha ugu firfircoon ee ka mid ahaa wakiilada hay-adda adeeg lacagaha yaryar ee Soomaalida. qodobkaasi xanaan ayaa waqti xaadirkan warar wixina soo gaadhay oo ugu dambeeyey wararkan waxayna la socodsiinayay anigoo ah Lumaan Cabdi Axmed aniga iyo akhyaartii igala qayb qaadatay tabinta warkan oo isku duuban waxaan ugu dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.